الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. maanta waxaan halkan usoo fadhiistay in aan bogaadiyo kow dhalinyarta reer awdal, laba professorada reer awdal ee dibadda iyo gudahaba jooga ee iyaguna taageerada u muujiyay, saddex oo laga maarmaana odayaashii dhaqanka ee shirka lagula galay shalayto oo bishu ahayd 19 ay ahayd lagula galay madaxtooyada Hargeysa lagula galay intaas haddii aan ku bilaabo waxa weeye intaaba aad baan u bogaadinayaa rumaantii dhalinyarta aayahooga ka tashaday ee masiirkooda aan cidna ku halaynin ee iyagu ka hadlaya aad baan u hambaliyeynayaa, aadna waan u bogaadinayaa. kow wax loo kala baxbaxana maaha taas. waxaan ku adkeynayaa inay halkooga ku taagnaadaan odayaasha shalayto kasoo shirka loogu yeedhay ee gaashaanka ku dhuftay ee iskaga soo baxay arrintaas noocaasana waan iyagana waan bogaadinayaa. kuwa la leeyahay yani way leexdeen oo waan qaadanaynaa bay yidhaahdeenna aad baan u cambaaraynayaa. intay doonaanba ha leekaada aad baan u cambaaraynayaa, iyagana cambaar baan dusha uga tuuray. waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa aan u hambaliyeynayaa professorada reer awdal ee dibadda jooga laga bilaabo professor Ahmed Ismail Samatar, professor Allabari, professor Ibrahim Ahmed Cabsiye, professor Abdisalaan Ilburo oo iska daba maray runtiina dhalinyarta iyo odayaashaba taageero mugle yani siiyey wuxuu siday yihiinna u sheegay. haddii cilmi lagu hadlayo haddii caqli lagu hadlayaba halkii ay taalay dhigay, iyagana aad iyo aad baan u bogaadinayaa oo aan u soo dhaweynayaa. intaa waxaan uga gudbayaa ninka magaciisa la yiraahdo Cabdullaahi Abukar, wasiirka jidadka ah oo shalayto la xalay yani meediyaha ka hadlayay oo reer awdal baan jawaab siinayaa lahaa oo aan reer awdal isagu jawaab siin karin, waayo afhayeen dowladeed ma aha. sababta u keentay oo aflagaadada intaa leeg ugu soo fadhiistayna ma garanayo. Cabdullaahi Abukar haddii aan in yar ka tilmaamo, Cabdullaahi Abukar wuxuu ahaa isagoo wasiir ku-xigeenka amniga ee ee wasaaradda arrimaha gudaha, ninkii xaaskiisa iyo maxastiisa qoryaha iyo rasaasta iyo hubka ku dhex urursaday ee ku dhex dagaalamay buu ahaa. caqliga noocaasa ninkii uu ka suuroobay buu ahaa, iyagoo ishayay markaa xirsi xaaji cali xasan ishayay oo wasiirka madaxtooyada ahaa. ninkii carruurta ku dhex dagaalamay buu ahaa ee laga soo guray qoryaha iyo rasaasta. muuse wuxuu ahaa ninkii markaa guddoomiyaha kulmiyaha ahaa ee difaacayay lahaa ninkaasi uu isdifaacayay. maxasta dhexdeeda la iskuma difaaco, wax uu isku difaaco oo markaa uu hub iyo rasaas gurigiisa ugu urursadaana meesha maba oli. Cabdullaahi waa ka noocaas. waxa kale oo aan u soo qaadayaa inuu Cabdullaahi yahay yani sidii islaantii boqorka Faransiisku qabay kacaankii Faransiiska ee markii dadku ay soo mudaharaadeen tiri dadku maxay u qaylinayaan rooti bay u qaylinayaan. hadday rooti waayeen maxay keegu cuni waayeen tiri. caqliyada noocaasa ayuu Cabdullaahi ku hadlayaa oo calooshiisa la hadal. ragna waxa ugu liita calooshiisa la ciyaar iyo ciilkama kore ayaa ugu liita. Cabdullaahi waa calooshiisa la ciyaar, ciilkama korana wuu ka dambeeya. marka isaga intaa u dhaafi maayo. waxaan u gelayaa oo aan hadalkayga kusoo gabagabeynaya rag yani shaxdii doorashadan uu ka sheekaynayo 2015 iyo 2012 iyo uu Cabdullaahi carabka la dhacayo, anuu waqti ay dhacday iyo waqti 2015 doorasho la galay ma garanayo. wax Somaliland yaalana maaha. doorashada lagu wada hadlayo sideedii lagu galay lagu gali maayo leeyahay waa 2005 15 sanadood baa ka soo wareegay. markaana waxa la isku maslaxay oo la yiri reer awdal oo tanaasulo oo waxaad aqbashaan maanta intaa mar kaliya maanta oo kaliya lagu galo. way yeeleen. maanta haddii la yidhi haddana halkii markii hore laga qaniinay ku celiya, go'aankii maxkamaddana indhaha laga dulalinayo iyo wixii dastuuriga ahaa ee meesha yaalayna indhaha laga tuurayo, waxaan soo jeedin lahaa
gobolladu sida ay ugu kala fadhiyaan codadkii ay ku guulaysteen ee ku soo kala baxeen 2005 ama 2005tii maroodi jeex 127,000 20 xildhibaan bay ugu fadhiyaan golaha 8,456 waa awdal 13 kursi bay ugu fadhiyaan golaha saaxil 10 xildhibaan bay ku fadhiyaanoo 25,000 oo cod bay ku fadhiyaan gebigoogu marka la sugeeyay sanaag 34,000 bay ku fadhidaayo 12 xildhibaan bay ku fadhidaa golaha togdheer 15 xildhibaan bay golaha ku fadhidaayo 60,000 bay lahayd weeyaan codkeedu يعني عدي بينينيسا دي هذا شو هالشيء صول وسكلا الله يعني مارتي الله معمولي لبيه طبعا كن هي لبيه طبعا حلي بان بيان يكون فديا وحبابك كما قبنا ما أنت إذن كنا ما أنت يلو ما أنتو كلية حلقو قالوا إن عدكها حلي بان هذا الصوت ورانا يلا وصل عليه وقبل والب عدكيس الله قدفتو لا وصل عليه لبيه سديتن كعد waxay ku fadhiyaan 348,000 oo cod bay ku fadhiyaan 280,000 baa inta ku fadhiya 880,000 imisay ka helaysaa 127,000 imisay ka helaysaa hadaan mitaal soo qaado hargeysa oo kale hadii loogu dhufto 30 xildhibaan bay helaysaa awdal hadii loogu dhufto 21 xildhibaan bay helaysaa saaxil 25,000 cabdullaahi gobolka uu ka soo jeedo waa boqor 5 xildhibaan ka badan ma helayso waayo 10 xildhibaan 25,000 oo cod kuma heli karta de cadaaladda noocaasa bal dadku waa ka taliyaan iyo wixii maxay oo hala kala gar qaato waxaan ku soo gabagabeynayaa waan kaga baxaya niman wadaadaa oo ree awdala oo masaajidda ka khudbadeeya oo salaada dadka tujiya oo muxuu ahaa dadkooga ku maaweelina ama ula soo taagan oo khudbadii jimcaha uga dhigay يعني 13 xildhibaan awalba waxbay nooma ahayne waxbay nooma ahaye inaga daaya waxa yani ka dambaysa wadaadka ama wadaadada nooca u hadlaya de mushaar bay muxuu ku hadlayaan oo ay doonayaan inay ku iibsadaan masiirka dhalinyarta gobolka ka soo jeeda ee mustaqbalka ayay doonayaan inay mushaarkooda ku gataan oo ay ku iibsadaan suuragal ma waxaan leeyahay wadaadada noocaasa ee marxaatiga muxuu la soo taagan muxuu dadka niyad jabinaya ku ekaada masaajidadiina iyo khudbadihiina faraha kala baxa siyaasadda iyo masiirka gobolka haddaydaan taageerayn oo aydaan muxuu dadka dhinac u raacin intaas baan muxuu iyagana oran lahaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.